Having said this, let me now welcome the President of the Republic of Somaliland, His Excellency Musa Bihi Abdi, to officially launch the second phase of Somaliland Development Fund. Mr. President, welcome. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo daahfurka wejiga labaad ee mashruuca SDF ee maanta la daahfurayo 2013 bay ahayd markii la daahfuray wejigii koobaad ee halkan uu ku daahfuray madaxweynihii hore ee Somaliland Mudane Axmed Maxamuud Silaayo oo ahaa madaxweynihii xilligaa joogay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan dowladaha ka soo qayb galay mashruucan ee taageeradooda sida tooskaas duuqan ugu soo shubay oo hirgeliyey ka qayb qaadashada horumarinta Somaliland mashruucyo aad iyo aad waxtar u ah oo kuwii halkan laga sheegay oo ugu waaweynayeen cusbitaalka Ceergaabo iyo cusbitaalka Laascaanood iyo mashaariicdii kale halkan laga tilmaamayba aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa gaar ahaan dowladihii arrintan ka howlgalay ee ka mid yihiin dowladda Ingiriiska dowladda Denmark dowladda Netherlands dowladahaas oo kaalin weyn oo muuqata ka qaatay horumarinta waxaan ugu baaqi lahaa oo jecelahay cid kasta oo taageeraysa Somaliland oo doonaysa inay ka qayb qaato horumarinteeda anagoo ugu mahadnaqayna inay ka soo qayb galaan sanduuqan SDF oo noqday mid la shirabay midho wanaagsan keenay lagu guuleystay yareeyay kharash badan oo ku baxayay lacagaha mari jiray beero badan oo ay soo martay lacagtii oo NGO iyo xafiis wareegana soo yareeyay oo u faa'iideeyay dadkii ay hawshu gaari lahayd waxayna tahay taasay ku habboon tahay in laga wada qayb galo dowladaha kalena si cashuur bixiyayaasha wadamadooda ee taageera Somaliland ay lacagtoodu iyadoo oo muglih oo waxtaraysa u soo gaadho halkii ay ugu talagaleen inay dadku taageeraan dadweynaha Somaliland taana waa ku baaqayaa waa ku dhiirigelinayaa jamhuuriyadda Somaliland waxay ku talagashay in ay saxdo qorshaheeda horumarineed ee dalka xukuumaddan waxaa ka go'an in ay u guurto dhinaca maamul wanaagga yaraysan dhaliilaha ka yimaada habka dhaqaalaha loo maamulo iyada oo uu hogaaminayo wasiirka maaliyaddu oo uu aad ugu dadaalay inay hirgalo mashruuca maamul wanaagga iyo maareynta dhaqaalaha waxaan ku dadaalaynaa inaanu xoojino maamulka mashaariicda meel heer wanaagsan aanu ka gaadhay oo dowladda Soomaaliland wasaaradooda badankoodu ay wasaaradu ka adag yihiin mashruuca si loogu talagalay inay u hirgeliyaan iyaga oo la shaqeynaya hay'adaha maalgeliyay ixtiraamna siinaya cid kasta oo taageertay waxa kale oo naga go'an dowlad ahaan in mashaariicda horumarineed ee Somaliland lagu taageerayo dhammaantood ay maraan wadadii loogu talagalay oo aanay xagga dowladda Soomaaliland wax dhaliil ka imanin haday dhaqaalaha tahay iyo haday maamulka tahay waxa kale oo doonaya inaan u cadayno hay'adaha taageerada dowladaha taageera inaanu doonayno wada shaqaynteena inay ahaato mid daahfuran oo labada dhinacba arki karaan sida ay hawshaas u socoto maamul ahaan iyo dhaqaale ahaanba sidaa darteed dhowaan waxaan soo saaray tilmaamayaal ama directives habka aynu wada shaqaynayno oo aanu waafajinay xeerka Somaliland iyo dastuurkooda kuna ixtiraamnay inaanu dhowro xeerarka hay'adaha caalamiga ah ama international baa lagu wada shaqeeyaa anagoo ixtiraamayna laakiin waxaan soo saaray directives aanu isleenahay waa sida ugu habboon ee daahfuraan iyo efficiency يعني waxay la qabtay hawlgelin in lagu helo wadada loo marayna tahay waa jiraan hay'ado ama dawlado ka soo bixiyay faalo oo meelaha qaar kood ila dareemaan ka qabna diyaar baan u nahay inaanu isla garanno wixii aad dhibsateen ee ama international ku xad gudbaya ama idinka xuquuqdina wax yeelaya inaanu ka wada hadalno
sidaas oo kale waxaanu ka rabnaa hay-adda ama dowladda aanu iskaashiga leenahay inay iyana ixtiraamto xeerka yaga iyo dowladnimadeeda inaad ixtiraamto yaan ogola waxaa jirtay in badan oo sanado badana oo dalku kuloo marxalad soo marayay iyo hay-adahana taageerada kala taageeraba inay taageerada laftoodu marar badan ku dhacaysay gacmo aan sax ahayn waa dadaala lalahaa kolba dhan baa kolba meel baa laga soo bilaabayay waxa weeye meeshay deeq maraysaa waa inay isla xisaabtan iyo daba socdaata tilmaamooyinka aan soo saarayna intaas baan uga jeednay aada iyo aad baan mar labaad ugu mahadnaqayaa dowladaha sanduuqan furay ee nagu taageeray aad baan usoo dhoonaya mashruuca labaad iyo intii ka shaqaysa iyo maamulkoodaba waxaan inoo rajeynayaa inay inagoo wada shaqayno ay mashaariicda iminka halkaa lagu qorsheeyna ay sooda u hirgalaan inaguna aynu wada shaqayn wanaagsan oo hufan waan ku celinayaa hufan oo transparent inaan helo haddii lala dhaliilo oo dowladaha soo koraya la taageera had iyo jeer la dhaliilo caanta iska qaataan waayo mar kasta ninka miskiinka wax la siiya la dhaliilaa in waan ogol lahay laakiin kuwa deeqda bixiyana ha ogolaada inay dhaliilayihiin iyaguna waa jira bini aadam wad saxi markaa labada isla saxaabaan jecelahay waxaan mar labaad soo dhaweynayaa mashruucan kuwa dambe la furin doono hal qodob baan doonaya inaan xuso biyogelinta hargeysa caasimaddu 7 sano ay socotay iyo ka badan dowlado badan baa isku tegay lacag badan oo ilaa 60 milyan ka badan ayaa la geliyey cid kastaaba ha gelisay aad baan ugu mahadnaqaynaa caasimaddu way koraysaa dadka hargeysa waxaan isleeyahay sanadkiiba ilaa 5% baa ku kordhaa ama ka badan dari tobanba gaadhin inta ku dhalatay iyo inta kusoo qulqulaysa waxaan doonaynaa markaa inaynu qodob isla garanno maanta SDF waynu joognaay waxaa la sameeyey 67 sannadood iyo lacagta intaa leeg xooggeedii 9% waxay ku baxday infrastructure qasabadihii maxaan ku dhahaa barkadihii magaalada dhexdeeda qasabadii la gelin lahaa laakiin aynu isla hubsanno markaynu qalabkaa dhisno barkadihii aynu dhisno qasabadihii aynu intaasoo dhan xoolaha gelinay qofkii biyaha u baahna maxaa soo gaaraya productionkii maxaynu haynaa isweydiino productionkii biyaha maxaa soo baxaya marka inta oo dhamay xagee biyihii halkay maraya biyaha laga soo saaraya hargeysa geed deeble 14 ceel baa shaqeeyay imika haddii loogu batana 6 kale lagu dari karaa ma gaari karaan 40% magaalada hargeysa guryaha ka dhisan maanta iyo qasabada soo saarkeed waxaan qabaa waxaynu u baahanahay in la isticmaalo in productionkii halkii biyo laga heli lahaa la diyaariyo oo aan qabo ta ugu dhib yar waa in la sameeyo dhaamam waaweyn 3 dooxe geed deeble maraa waa laga qaadan karaa dhaamo waaweyn oo magaalada inta biyo fog loo raadinay biyo istaraatiijiga sanado badan soo saaray kharash badan ma aha markii la xisaabiyay ilaa 20 milyan ayaa u qabanaya 20 milyan dollar baa u qabanaya biyo milyan iyo bar ku filaada muddo 5 ilaa 10 sano waa la hayaa daraasadeedina marka qolada steering committee-ga iyo SDF iyo cidii kale ka qayb qaatay biyaha hargeysa waxaan leeyahay waynu wadnaa infrastructure-kii biyihii magaalada ku filan lahaa waa in la qabtaa waxaana soo socota dhibaato aynu wada ognahay 20 sannadood boodaa dhaaminayay waxay ka dhaaminayaan ceelo gaagaaban way sii durkayaan maalinba ceelasha baa engegaya sanadka waan roonaa sanadan roob baa daay laakiin hareeraha magaalada ka xiga markii hore 10 kilomitir 20 kilomitir 30 kilomitir ceelasha way dhamaanayaan markii 60 boodo maalintii galaan marka waxaan leeyahay taana ha loo fiirsado oo marka la dhameeyo mashruucan qalabka dhisida iyo qasabadaha iyo barkadaha wixii waan la hayaa biyihii soo mari lahaana aad iyo aad waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu